Assalaamu calaykum. Waxaan u wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegaynaa 12 ciyaaryahan oo ka mid ah xidigaha ugu caansan kubadda cagta kuwaas oo jirkooda ku midabeeyay tattoo afka Carabiga ku qoran iyo waxa ay kala jeedaan. Waxaan ahay Harun Yusuf Qasaaro ee ku soo dhawaada xalqadeena maanta. xidigaha aynu magacyadooda soo qaadi doono oo aad muuqaalkan ku daawanaysaan kuwaas oo korkooda ku midabeeyay tattoo afka Carabiga ku qoran waxaa ka mid ah Zlatan Ibrahimovic, Paulo Dybala, Sergio Busquets, Hector Bellerin iyo kuwa kale. Intaanan gudagelin laacibiintan tattooga afka Carabiga ah jirkooda ku qoray iyo macnaha ay kaga dan leeyihiin fadlan ku soo biir barteena YouTube-ka adigoo taabanaya subscribe gambalaalkana furanaya si ay durba ku soo gaaraan warbixinada aynu bartan soo gelino. Waxa sidoo kale inaga xusuusina inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like inoo saarto si uu saaxiibo badan u gaaro. Mahadsanid. Marko Arnautovic waa ciyaaryahan ka tirsan xulka qaranka Austria una ciyaara kooxda Shanghai ee wadanka Shiinaha. Gacanta midig waxaa kaga qoran shabad afka Carabiga ah oo ah magaca Markon oo laga yaabo inuu kala jeedo magaciisa Marco oo xagga qoraalka laga qalday. 2. Radja Nainggolan waxa uu ka tirsan yahay laacibiinta kooxda kubadda cagta Inter Milan ee ka dhisan wadanka Talyaaniga. Xidigan reer Belgium ayaana waayihiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay Talyaaniga, gaar ahaan Piacenza, Cagliari iyo Roma. Nainggolan waxaa sinta korkeeda ama halka ku beegan kalidiisa uga dhagan tattoo ama shabad af Carabi ah oo uu kala jeedo magaciisa Nainggolan. 3. Daniel Parejo xidiga qadka dhexe uga dheela xulka qaranka Spain waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda iyagoo aan afka Carabiga garanayn haddana doortay inay korkooda ku qoraan, waxaana shabad magaciisa oo af Carabi ah lagu qoray ay kaga dhagan tahay gacanta midig waxaana ku qoran Daniel oo af Carabi ah. 4. Martin Skrtel kabtankii hore ee xulka qaranka Slovakia daafacana uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Liverpool ee ka dhisan dalka Ingiriiska ee Martin Skrtel ayaa isna bidix waxa uu ku soo qortay shabad xarfo kala go'go'an oo Carabi ah taasoo u noqonaysa Netram oo marka gadaal loo akhriyana noqonaysa magaciisa Martin balse ku qoran afka Carabiga. 5. Hector Bellerin xidiga shanaad ee sheekadani ay taabanayso waa daafaca xulka qaranka Spain iyo kooxda Arsenal ee ka dhisan waqooyiga magaalada London ee dalka Ingiriiska. Ninka la yiraahdo Hector Bellerin kaasoo isna ka mid ah ciyaartooyda jirkooda ku midabeeyay tattooga af Carabiga ah, waxaana Hector Bellerin uu doortay magaca Sadiq oo la micno ah saaxiib. 6. Souley Ali Montari ciyaaryahan Souley Ali Montari oo ah laacib muslim ah xulka qaranka Ghana u soo ciyaaray haatan u dheela kooxda Albacete ee ka dhisan wadanka Spain ayaa isna ka mid ah ragga shabadaha af Carabiga ah korkooda ku qortay, waxaana isaga uu ka duwan yahay ciyaartooyda kale ee kubadda cagta oo aan muuqaalkan ku soo qaadi doono, waxaana jirkiisa ku qoran aayado Qur'aanka Kariimka ah iyo magaca Allah. 7. Adrian Mutu tababaraha xulka qaranka da'yarta Romania horeyna ugu soo ciyaaray kooxda Fiorentina ee wadanka Talyaaniga. Adrian Mutu ayaa isna waxaa gacanta bidix kaga taala shabad magaca Nabi Ciise calayhi salaam ah oo afka Carabigana noqonaysa Almasiix. 8. Simão Sabrosa ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Portugiiska una soo ciyaaray naadiyo fara badan oo ay ka mid yihiin Barcelona, Benfica, Atletico de Madrid iyo Besiktas ayaa isna labadiisa gacmood waxa ugu kala qoran magacyo af Carabi ah oo kala ah Mariana iyo Martin kuwaasoo ah magacyada caruurtiisa. 9. Guti xidigii hore ee qadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka Spain ee Guti oo ciyaaraha ka fariistay haatanna ah tababaraha kooxda Almeria ee ka dhisan dalka Spain ayaa sidoo kale isna gacanta bidix waxa uu ku midabaystay shabad af Carabi ah oo u qoran Ummi oo af Soomaali ahaana noqonaysa hooyo. 10. Sergio Busquets jumlad af Carabi ah oo oranaysa shay'un laka alxayaatu fi baladi ayaa waxaa gacanta bidix ay kaga taalaa laacibka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Sergio Busquets. shay'un laka alxayaatu fi baladi
waa af carabi jacbur ah oo aan fasiraad buuxda loo hayn, laakiin haddii aan isku dayno noqonaysa shay adiga dhankaaga ah nolosha waddankayga. mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay Busquets jumladan carabiga ah oo uu gacanta ku soo qortay fasiraadda rasmiga ahna aan loo haynin waxa uu kala jeedo, ayaa waxa uu ku jawaabay, arrintan waa arrin familkayga u gaar ah, intaas ayaan uga baxayaa. 11 Zlatan Ibrahimovic, shabada ama tattoo fara badan oo ku qoran jirka weeraryahanka reer Sweden iyo kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga. ninka la yiraahdo Ibrahimovic waxaa ka mid ah shabad ku qoran af carabi oo magaciisa ah oo uu gacantiisa ku midabaystay. 12 Paulo Dybala. ugu dambeyntii waxaan warbixinteena 12 ciyaaryahan ku soo gabagabaynaynaa weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Paulo Dybala, kaasoo feeraha ku qortay magac ama shabad af carabi ah oo oranaysa Alishi, oo ah magaca hooyadiis Alicia, halka lugtana uu ku qortay Adolf oo laga yaabo inuu kala jeedo magaca aabihiis Adolf oo xagga qoraalka laga qalday. intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixintii aan ka diyaarinay qaar ka mid ah xidigaha caanka ah ee kubadda cagta kuwaasoo jirkooda ku midabeeyay ama ku shabadeeyay tattoo af carabi ah. waad ku mahadsan tahay daawada inaad nala soo gaartay gabagabada muuqaalkeena maanta. walaal waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan haddii aadan hore noola joogin oo aad tahay saaxiib nagu cusubna ku soo dhawow barteena YouTube-ka adigoo subscribe saaraya gambaleelkana furanaya si durbaba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu bartan soo gelino. mahadsanid. waa Harun Yusuf Qasaaro oo idin leh intaan mowduuc kale idin soo diyaarin doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.